waxaan aad uga walaacsanahay dagaalka aan qiimaha lahayn ee naf iyo maalba galaafanaya ee ku dhex maraya beelaha walaalaha deegaanada Jiicboor, Saaxqurun iyo Meegaag oo ka tirsan gobolka Mudug. waxaan sidoo kale ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay iyo kuwa waxyeeloobay oo aan Ilaahay uga baryayno in Ilaahay u boogadhayo intii dhimatana u naxariisto. waxaan ugu baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo lana xakameeyo caadifada iyo kicinta bulshada oo xaqiiqdii dab ku sii shidaya colaadda, waana in gacanta laga qabto cid walba oo horin wada. waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah sida odayaasha dhaqanka, culimo diinka, bulshada inteeda kale in ay nabadda u istaagaan oo ay kaalintooda ka qaataan sidii colaadda loo joojin lahaa. waxaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ugu baaqayaa in ay kaalintooda ka qaataan ayna u istaagaan xal u helidda colaadda iyada oo ay mas-uuliyadi ka saaran tahay xakamaynta iyo xal u helidda dhibaatadaas. waxaan cambaaraynayaa cid kasta oo si khaldan ugu lug leh hurinta colaadda oo ay ugu horeeyaan khawaariijta iyo dadka sabaha necab. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay cadaynaysaa in lala xisaabtami doono sharcigana la horkeeni doono cid kasta oo ku lug yeelata hurinta colaadaha sokeeye guud ahaan dalka. waxaan la socon doonaa calaamadina doonaa qaswadayaasha. ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wax allaale wixii kaga aadan sidii xal waare loogu heli lahaa colaadda ka socota gobolkaas. insha allah khayr iyo guul baan ummadda u rajaynayaa iyo in laga waatoobo wixii dhib oo ay ku soo jiri jireen oo ay waaye arag u yihiin dhibaatooyinkii ay soo mareen oo muddo hadda 40 sano xabad iyo col iyo dil ahayd oo aan waxba laga faa'iidin. runtii waa aragnimo inoo tahay waxa aynu ku weynay iyo waxa aynu mudanay iyo heerka aynu joogno. sidaa darteed maanta uma aynu baahnin, qof walbana waa ka dheregsan yahay duruufta iyo dhibaatada ay leedahay dagaallo ku sii socdaa. maxaa laga faa'iidaya? dhulku waa idin wada deeqaa, iska daaya wax muxuu ahaa aan inoo tarayn faa'iido nolol inoo lahayn hal iska daayo. waxaasu waa waxaynu ka soo gudubnay oo runtii aan waxba inoo lahayn. wiilka dhimanaya oo xabadda isku dhigaya hadduu dhinto dhul maxaa ka galay? maxaa la isku dilaya? wax qaloocan baa la isku dilaya. cid sheegi kadha hadda labadiina dhinac iyo dhinacyada ma jidho waxa la isku dilayo. waxaan idin rajaynayaa caqliga iyo cibaadada oo aad dib ugu noqotaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.